بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حلقة عنوان كيدو وحوية دنباتري dadka gabayada sheega iyo dadka gabayada akhriya iyo dadka gabayada dhuuxa uu garanayaa dambaa الحقيقة madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u safrayaa magaalada laascaanood ee maamulka SSC Khaatuum. anigu magac kale oo loo bixiyay garan maayo. waxbaa keenay waxa keenay khariidada ay yuhuuddu soo bandhigtay. kolkuu khariidadii arkay waxaa u muuqatay inaan fadhi u ool. sidaas ayaa uu ugu boqoolayaa SSC Khaatuum magaalo madaxdeeda laascaanood. dambaa tiri waana laga yaabaa shirkii golaha wasaaradda in meesha lagu qabto. dhab waxaa dhab xaqiiqadayda dhab ah. dalku wuxuu kala go'i karaa ama midoobi karaa ceerigaabo, burco, laascaanood. saddexdaa magaalo waa bridge. haddii SSC Khaatuumo hadda la hayo oo laascaanood la hayo, faa noole fari kama qodna. ardhigalay wax maqal. waxa aan ku hadlayaa waa cilmi, waa falsafad, waa taariikh, waa wax waaqiciya oo dhab ah. qodobka intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa siyaasiyiinta Soomaaliyeed dadkooda been bay u sheegaan. haddii shacabka la yidhaahdo war waxaa laydiin sheegay waa beenna, rumaysan maayaan. waxay rumaysanayaan ninkaa beenta u sheegay. waxay rumaysanayaan wixii ay ku burbureen oo ahaa qabiilka inay weli qabiilkii dabada hayaan. bal puntlanday waxay tidhi sool iyo sanaag dastuurka puntland bay ku taalla. war ma xukuntaan baan 20 sannadood baan lahaa war ma xukuntaan. war waa been aad dadka u sheegaysaan. war koonfur baa tihiin ma jeerteeno. war sacad baa gaalkacayo wada degan tihiina wax la qaybsada. waa dhigala yihiin. harti war ma jiro harti iyo awr lagu kacsadaa iyo qof lagu kacsadaa. waxa anigu aan diiday anigoo qofka waa fardi ayaa doonaysaan ummaddan inaad been u sheegtaan. markaasay haddana idin raacaysaan oo ay beentiinnii run moodaysaa. garoowe 1 garoowe 2 garoowe 3 iyo wixii faroole. war ka bax. bajeerteen baa laydin yidhaahdaa. boosaasaa waxay dad badan baa idinla leh. garoowe dhulbahantaa idinla leh. gaalkacayana waxaa idinla leh sacad iyo leelkase iyo awrtable iyo carab saalax. siyaasaddaba oo run a la imaada haddaad tihiin reer puntland. waray qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. alxaqiiqa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war nin kursi ku fadhiya ha ka dhegaysanina beentiisa. kursigu ilaashanaya. war nin
kursi ku fadhiyaa ballanqaadkiisa run ha moodinina kursigu ilaashanaya waxa maskaxdiinna iyo garashadiinna iyo waxa dhabta ah iyo waxa ninka beenta idiin sheegayaa war kala saara oo kala garta soomaali meelay joogtaba qodobkaasaan leeyahay alxaqiiqa waa maqlaayay niman mudanayaala oo la kulmay madaxweyne xasan sheekh oo suuqa ku soo daadiyey war ma runbaa ma naqaan ma beenbaa ma naqaan wuxuu xasan leeyahay ciri way khiyaameeyey oo adiga xasan sheekhow ciro ma ku khiyaamaynayaa muuse biixi ma ku khiyaamaynayaa mid waliba ma ku khiyaamaynayaa tiyori baa odhanaysa haddaad adigu khaayinimo u socoto khaayinnimaa kaa hor imanaysa anigu waa qaadan waayey inuu xasan sheekh yidhaahdo waa lay khiyaameeyey oo haddii lagu khiyaameeyey miyaadan madaxweynihii dalka ahayn miyaan istaraatiijiyadii kuu jeexnay miyaadan taariikh hayn miyaadan talooyin dhegaysan miyaadan ummadda dhegaysan anigu warkaa xildhibaanadu soo wariyeen run iyo been wuxuu yahay maaqaan laakiin suuquu yaallaa waray qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa safarka xasan sheekh maxamuud uu laascaanood ku tagaayo SSC khaatumo dambaa tiri ee lama duudsiyeen dirci dheeraa alxaqiiqa rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar